wasiirkii hore ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska ee Somaliland ee dhawaan loo bedelay wasaaradda dibadejinta ayaa si rasmi ah u daafuray madxaf ama goob loogu talagalay in lagu kaydiyo laguna soo bandhigo raadadka agabka iyo goobaha taariikhiga ee ku yaala Somaliland waxaana halkaasi sharaxaad lagaga bixiyay laguna soo bandhigay goobo taariikhiya iyo sidoo kale agab kala gadisan oo isticmaali jireen dadiyowgii hore ee ku dhaqnaan jiray Somaliland agaasimaha wasaaradda ciyaaraha dhalinyarada iyo dalxiiska Maxamed Dhabeeye iyo wasiirkii hore ee wasaaradani Cali Siciid Reygal oo labaduba halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay muhiimadda ay arintani u yeelan karto shacbiga iyo xukuumadda Somaliland gaar ahaan waxa ay carabka ku dhufteen in ay soo jiidan karto arintani dalxiisayaal aad u fara badan oo xukuumadda ka soo gali karo dakhli maanta kulli waxa farxad weyn oo kulligan baynayno isugu nimi xaruntan cusub museumka waxa weeye wasaaradahan aan ku soo ururinay taariikhda Somaliland haday tahay qoraaladii laga qoray dalka raadraacyadii la sameeyay iyo haday tahay waxyaalo muujinayo marag u ah runtii waxa weeye taariikhda qadiimka waxa cadin dadka Somaliland dalkan waxa weeye ay ku noolaan jireen dadyo hore ay ku noolaan jireen oo waxa weeye diimo kala duwan haystay oo waxa weeye qoomiyado kala duwan ahaa oo waxa weeye meelo fara badan runtii soo maray arintaas waxay runtii maray u tahay inuu dalkan ahaado waxa weeye weligiiba jiray oo taariikh dheer leh runtii burburkii dhacay dhibaatooyin jiray iyo dadkeena waxa weeye dad reer guuray ahaa sabab u ahaa in waxa weeye arrimahan iyo raadadkan ay noqon qaar meel weyn runtii yaala waxa ka mid tahay taariikhdeeni waxay muujinaysaa wadankeena waxa ku duugan ku jira haday tahay taariikh hore oo ay ka tageen dadkii hore ay ka tageen matalan de wadanka taariikho iyo dad badan bay naga horeeyay waxay muujinaysaa dadkii hore waxay ka tageen inay wadanka ku jiraan waxay muujinaysaa dadkeena Somaliland ahaan waxaynu dhaqan walahayn inay jiraan oo yaaliin haday tahay nooc kasta oo kamida waxay muujinaysaa in waxyaalo badan oo taariikhdii dalkeena laga raadraaci kara ay ku jiraan marka runtii waxa weeyaan waa arrin aad iyo aad u qiimo badan waa arrin aad iyo aad farxad inoogu ah waxaynu u baahanahay dhamaanteedba inaan ka wada shaqeyno waxyaalaha aasaarta qadiimka ah iyo waxyaalaha taariikhda ah ee dalkeena ku dugan ama dalkeena korkiisa yaala dhamaanba inaan ka shaqeyno ayaa loo baahan yahay Maxamed Faarax Umaade Somali Channel Hargeysa.